Hello. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku falaqeyno mas'alo la xiriirta saddex xagalada oo tii hore ku xiran. Balse waxaan ragnay inay hortaagan tahay mas'aladan kale. Haddii aan haysano afar gees, waxaan naqaanaa badkiisa ama area-diisa in lagu helo labada dhinac la isku dhuftay a times b. Balse sidee uu badku yahay a times b? Taasana hortaagan. Haddii aanan taa sharaxi karin ama aanan caddayn karin, taa hore way nagu adkaanaysaa. a times b waxa ujeednaa a lagu dhuftay b waxaa dhex yaalla calaamada ku dhufashada. taas mas'alo kale noo sii dhiibaysaa oo ah waa maxay ku dhufasho? What is multiplication? Haddii aanan ku dhufasho aqoon oo aanan mental image ka haysan, way adag tahay inaan mas'aladan ka jawaabno. Haddii ay adag tahay in aan ka jawaabno mas'aladana, waxaa adag inaan ka jawaabno mas'aladii hore aan u soconay. Haddaba muuqaalkan waxaan uga jawaabaynaa mas'aladan. What's multiplication? Waa maxay ku dhufasho? Mas'alooyinka soo socdana insha Allah ama muuqaalada soo socda waxaan uga jawaabi doonaa mas'alooyin kale si ay u kala horeeyaan u xalin doona haddii ay goyn idmo. Haddaba ku dhufashadu maaha wax kale ee waa isku dar la soo celceliyay. Fadlan hay weydiin waxay tahay isku dar sababtoo ah haddii aan qalin ku daro laba qalin siday u tahay haddii aad weydiisid waxba khaldan. So isku darka waa lagu dhashaa dhisma weydii laakiin multiplication laguma dhasho sababtoo waxaan u alifnay. Haddaba multiplication waxaan idhi waa isku dar la soo celceliyay. Tusaale aan samayno. Ka soo qaad meeshaan aad joogtaa. Adiga waa kan. Waxaa ku soo maray koox bahaligla. Bahaligla waa nooc ka mid ah bahalada oo ku soo maray. Way ku ag mareen. Kooxdaasi waa afar xabo. Afar bahaligla ku soo ag martay. Way gudbeen. Adiga waa kan wali bartaadii aad joogtaa. Afartii way ku dhaaftay. Waxaa ku soo martay afar cusub ku soo martay. Afartii hore kuwaana afar cusub ku soo martay. Afartan cusub su'aal bay ku weydiiyeen oo ah koox bahaligla oo meelaha maris ma aragto. adigana waa u jawaabtay waxa ku tiri hadday dhaafeen ayagana sii socdeen abaarka bacdi haddana waxa ku soo maray afar kale bahaligla afartii way gudubtay afartii ku xigtay oo socota afar kale ku soo martay markaas waxay ku weydiiyeen ayaguna koox bahaligla oo meeshan maris ma aragto adiguna waa u sheegtay hadday gudubeen ma ku tiri afartii way ku dhaafeen haddaba su'aal haddii ay ku soo mareen saddex kooxood oo bahaligla kooxdiiba saddex ay ka kooban tahay afar xubnood haddii xubnood dhaho intee bahaligla ku soo martay jawaabtu way fududahay waxaa laga leedahay afar lagu daray afar sideed lagu daray afar kale 12 simple totalka bahaligla hadda waxaan dhahaynaa waa 12 t waa total bahaligla waa 12 xubnood haddaba loo su'aal baan ku weydiinaya marka ka waran haddii aan bedelno bahaligla waa wax kale ku bedelno xayawaan kale ku bedelno ama shay kale ku bedelno tiradu miyay iska bedelaysaa 12 soo waxa ku soo maray saddex group oo libaxyo ah groupkii waa afar ku jiro wali waa 12 libax adaa waxa soo martay saddex shay oo meel taala ama saddex group oo ashyaa oo meel taala group kasta waxa ku jira saddex wali waa 12 wax kasta samee markasta waxa arkaysaa mar haddii ay tahay wuxuu saddex group oo kiiba afar u yahay markastana 12 tahay kuma xirna shayga ay tahay haddii ay tahay shay naf leh shay naf aan lahayn everything yani waa fikrad abstract saddex group oo groupkiiba ku jiro afar markasta oo 12 waxay doontaa ahaato bahaligla ama xayawaan kale ama dad ama noole ama noole haddaba waxaan dhahaynaa marka su'aashii kale hore aan soo qadimay waa ahayd waa intee bahaligladu haddaba waxaan dhahaynaa marka waxaa jira xiriir ka dhaxeeya saddex iyo afar xiriirka wali magac aan bixin xiriir ka dhaxeeya saddex iyo afar oo markasta 12 ku siinaya yani haddii aan afar saddex jir soo celiyo markasta 12 ku siinaya xiriirkaas waxaan rabnaa inaan magac u samayno saddex iyo afarna kuma koobna yani special case ma aha saddex iyo afar waa tiro kasta haddii aan ka soo qaadno groupkii saddexda ahaa groupkii afarta saddex group aan ka soo qaadno shan inay ahaayeen sidaa doonta shayda u bedel bahal iyo ma bahal iyo noole iyo ma noole waxaa doonta ka dhig markasta tiro waxay noqonaysaa cayawaan isbedelayn tusaale ahaan 5 laba ah 5 group oo kiiba laba yahay markasta waa 10 5 lagu daray 5 ama 2 lagu daray 2 lagu daray 2 lagu daray 2 lagu daray oo isku noqonaysa totalka 10 haddaba isbedelaysta waxaan dhahaynaa waxaa jira xiriir ka dhaxeeya hadda tusaalahan waxaa noo ah 3 sida darteed iyo 4 asagan qaadayna xiriir ka dhaxeeya 3 iyo 4 oo markasta ku siinaya 12 haddaba waxaan dhahaynaa xiriirka magaca u sameeyno xiriirka waxaan dhahaynaa waxa la dhahaa ku dhufasho
waxaan siinaynaa calaamadda noocan annaga hadda alifnay xiriirka right now baa alifnay sidaa darteed waa aniga qofka alifay waxaan u bixiyay meeshaan dhihi lahaa magacaygu waa Jamaashe jay meesha u bixin lahaa calaamad baa ka yara dhigay dadka u yara qurxinaya dhan kale u jeedinaya wow laakiin dhawaama buu akhriyay buugaas wuxuu ka hadlayay isla xiriirkan wuxuu nooga hadlayay qaab ah inay dad badan yaqaanaan calaamad gaar oo la isticmaalana way jirtay sidaa darteed waxaan uga hadda alifay ma ahan sidaa darteed waa ka xumahay waa layga hormaray dad baa horey calaamad ugu sameeyay calaamadii u sameeyayna waxa weeye karoos bay qaateen calaamad karoos abay qorteen sidaa darteed calaamadaasaa qaadayna welina magaceena u daysanayna ayagu waxay u yaqaanaan dadkaas qoray waxay u yaqaanaan multiplication laakiin annaga luuqadeena Soomaaliga ah waxaan u bixinaynaa ku dhufasho calaamadoodan waa la qaadayna oo kurimayno haddaba xiriirkaas jira xiriirkan intaasi haddaba waa definitionka ama ku dhufashadu waxa ay tahay ku dhufasho waa maxay waa soo celcelinta ku dar haddii aad mental image ka haysan way kugu adkaanaysaa inaad waxyaabaha kale oo dhan fahanto waxay kugu noqonaysaa markii waxyaabo tiradan si dul fulfulaan haddii aad base-kaas aqoon kuwan kale si aad soo firfirtay kugu adkaanaysaa haddii aad mental image ka ku dhufashada waa ku darsoon noqotay markastoo ku darsoon noqotay aragtidna ku dhufashada maskaxda ku soo dhacda laga baahan yahay haddaba jadwalkiina waa kan ay sameeyeen dadkii nooga hormaray sidoo walba noo diyaariyeen baan hadda waxaan sameeynay 3 lagu dhuftay afar kaliya ayagu jadwalkii dhammaystiran way noo diyaariyeen tusaale ahaan hal lagu dhuftay waxay dhaheen hal haddii aan hal jeer soo celino halkiisi haddii aan hal laba jeer soo celino sorry waxaan qoray haddii aan soo celino laba kale aan qaato haddii aan hal laba jeer soo celino waa labo haddii aan hal saddex jeer soo celino saddex su'aalaheeni wuxuu ahaa haddii aan afar soo celino saddex jeer waa 12 kaas isku imaanaya هذا بصراحة تحسوا أها كل فشان واتس